الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى waxaan wax yar ka oran doonaa amraadan shaadiinta ee dadka dhiba iyo sida ay dadka u ta'athiriyaan mid walba waxaan dul istaagi doonaa waqti yar insha Allah taala si ay uga faa'iideystaan dadka laga yaabo qof muslim ah wax laga yaabo iska jiifa dhakhtar walba la geeyay xanuunka haya oo ogeyn xanuun uu hayo laakiin xanuunka haya dhakhtarka markuu tago laf dhabarto kala laga hayaa marka xanuun laf dhabar la jiifa dhakhtarkii specialist u tagay waxa laga yaabaa inuu yiraahdo dhabarkaaga wax ku haya malaha isagina wuu jiray wuxuu weydiinayaa war ninkan dhabarkuba shaqul ku lahaay maxay tahay yani waxaan uu leeyahay wax ka haya waa xanuunaysaa aad dareemisay marka amraadaas oo runtii ruuxda ku dhaca ayaan tilmaami doonaa insha Allah taala jinka isha iyo sixirka sida ay u kala ta'athir badan yihiin baan u tilmaamayna marka ugu horeysa waxa ugu dhibka badan waa isha bini'aadanka noocay doonto ha noqoto ishu xaqiiqatan waa wax aad u dhib badan sixirka iyada ka dhib badan jinka caadigaana iyada ka dhib badan ishu qofka bini'aadanka ta'athir badan ayay ku yeelataa qofku marka insha Allah taala wuxuu dareemayaa ilaa 4 calaamadood oo kale wadna garaac madaal wuu dareemaa madax iyo dhafoorada marmar way xanuuntaa halka dhafoorada marmar way xanuuntaa Allahumma musta'aan naxdin marmar hurdada uu jag ka soo yiraahdo way leedahay daal fara badanna way leedahay waxay kaloo leedahay ishu meesha ay ku dhacday haddii wejiga ku dhacdo kale taqayur bay samaynaysaa gabadhii wejigeedii calaamad buu yeelanayaa oo sidii skinkoo kale ku dhacay marmar waxay samaysaa jirka caadiga hadday ku dhacdo finan yaryar bay samaysaa mar way dilaacaan mar ma dilaacaan ama waxay samaysaa baramad madow way samaysaa runtii ishu waa wax dhib badan heer badan bay gaarsiisaa xitaa inay carruurta yaryar dadka waaweyn inay qallajiso oo suuxdimo ay ku rido in badanna waan aragnay xaqiiqatan qof baa iskool aadaya ama wax qalin jabin buu aadaya markii shahaadadii la soo siiyo xarun baa ku bilaabmaya waxa laga yaabaa waxbarashadiisii oo dhan inuu halkaa kaga haro waxa laga yaabaa mid xaasida oo meesha jooga oo aan u qoodin qofka bini'aadanka inuu yiraahdo marka la yiraahdo abaalkan uu helay wuu dadaalay ma sha Allah aan u qoodin oo aan yani ishiisa xun ay ku dhacdo ayaa laga yaabaa qofkiis noloshiisii oo dhan inay bedesho waxaan markaa kula talinayaa dadka muslimiinta ee carruurtooda ay wax bartaan carruurta dhinac walba uga dadaala haddii subaxii masaajid ku soo tukaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii wax ka soo akhristay oo adkaartii oo kale uu soo laazimay waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu magantiisa ku jiro oo waxa xun oo dhan ka badbaadiyo laakiin ilmahaagii oo kuu qalin jabiyey oo aad faraxsan tahay ama dugsi dhameeyey oo aad faraxsan tahay oo leedahay maanta guul buu gaadhay inuu la soo laabto waxaan isagii dan u ahayn wax noloshiisii oo dhan baabi'iyey waa waxaan adigana dan ku ahayn isagana aan dan u ahayn ilaahay wuxuu ku soo siiyey subxaanahu wa tacaala xijaab wuxuu ku soo siiyey adkaar wuxuu ku soo siiyey wax lagu mangalo wuxuu ku soo siiyey wax subaxii la akhristo wuxuu ku soo siiyey wax fara badan buu ku soo siiyey adoo hadda ayicid iskoolkiiba u dadaashay oo waxbarashadiisii waa kan qalin jabiyey si wax u dhigay laakiin tii runta ahayd ee xaqiiqda ahayd xaqiiqdu waa tan kale tan aad ka soo tegayso ee laga yaabo inaad saaka ilowday inuu masaajid ku tukado taas xaqiiqda marka saasay ishu dhacdaa waxaan kaloo aragnay ilmaha yaryar ee hadli waaya hadalku ku dhigo nacaska noqda waxa laga yaabaa isagoo yar oo ama yara naaxsan in il ku dhacday isha uu ku koray xubnihiisii bay kala dhantaalaysaa hadalkiisii dhaqso hadalkii ma soo baxayo waxaa laga yaabaa carruurtii kale inuu ka duwan yahay oo qof iska aamusan yahay oo aan hadlinba waxaa laga yaabaa nacas inuu noqdo marka waxaasoo dhan وإن شاء الله تعالى حتى ضدك وحن كلا تقدر منا
adkaar baa jirta ilmaha yaryar lagu akhriyo ha barto hooyada ha barato ilmaha yaryar ha isku daydo inuu ku koro diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala si uga badbaado shaydaan il iyo balaayo waxay wataan ilaahayna uga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala waxaan ku xigsiinaynaa sixirku waa wax dhib badan sixirku runtii waxaa jira wax la yidhahdo sixru tafriiq waxaa jira sixru muxaba waxaa jira sixiru wax fara badan weeye dhowr iyo toban nooc wey laakiin hal shay baa lagu wada garta ay ka siman yihiin qofka hadduu ku dhaco meesha dhabarka dabagibinta meesha la yidhaahdo ayuu wuxuu ka dareemayaa xanuun meesha dambe ee lafta suunka laga xidho ama googarada laga xidho ayaa laga yaabaa sixir hadduu yahay inuu ka dareemo xanuun saa'id ah dhinac wuu ku dhacaa oo dhiig karkan iyo waxaan stroogan iyo waxaad arkaysaa qof aan dhiig kar qabi jirin oo laleeyahay stroog baa ku dhacay oo sixiru marad weeye sababto qofkan wixii stroog keenayaba muu lahayn sixiru marad weye dhinac buu faali ku dhufanayaa khalaas marka sixirku waa wax dhib badan waa dadka lagu kala geeyaa dad baa lagu jeclaysiiyaa waa wax adugu dhib badan oo qof ilaahay aan aqoon subxaanahu wa tacaala oo ilaahay ka furtay oo ilaahay kitaabkiisii diidan oo shaydaan u sujuuday waa qof inta loo tago qofka kalea u tegaya bufiiri bilaahi calayh haddaadan adigu shaydaan ahayn see ku aamintay qalbigaagu ku keenay qof ilaahay baan caabudayn oo shaydaan caabudaya oo yacni maaragtay balaayo samaynaya inaad naftaada u hibayso oo aad tirahdo waxa ii sameey muxuu kuu samayn karaa ma isagoo wax samaysta dulinimada mu ka baxo waxba kuma samayn karo wuu ku imtixaamayaa shaydaanna inaad dee berri cadaabka la gasho doonayaa ila waad aamintay wuxuu isku dayay qof muslim oo kalaad dhibaataynaysaa dhibkaasoo adigu kugu socdaa marka isku daya waxaa laga yaabaa gabadh ama wiil gabar jeclaaday ama wiil jeclaatay inay ku fekerto wiilkan see ku qabsata ama wiilkan uu ku fekero gabadhan see ku qabsata ilaahay ma baraya subxaanahu wa tacaala war ilaahay iska bari haddii ilaahay kuu soortayana arag haddii lagu diidana dee ilaahayba kuguma talagelin laakiin inaad saaxir u tagto oo shaydaan u tagto oo khuraafaadle u tagto oo mid shaydaan caabudaya u tagto oo midaan ilaahay aqoon u tagto subxaanahu wa tacaala oo aad wax ka raadiso aday diin darro kuu tahay oo khatar ku gelaya diintaade iska ilaali waxaasaa markaa sixirku dhibaatooyin badan buu leeyahay waxaan ugu daran sixirka la yidhaha sixru marad qofkaa lagu jiifiyaa ogaalkiisu wuu tegayaa xawaadistiisoo dhan gacmaha lagu qabsadaa dhinacyadaa lagu qabsadaa yacni maaragtay hadalkaa lagu qabsadaa qofkiiyo iska jiran oo waxaya auna ogeyn sixirku marka uu dhib badan yahay calaamaadkaasna wuu leeyahay haddaan waa soo gaagaabinayna shinkoo kale kusii daro shinku waa shaydaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyey ibliisna ka soo jeeda ibliisna u shaqeeya qayb muslinaa jirta laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa qaybta shayaadiinta maaridka ah ee diidan ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala waxay isku dayeysaa horta kow inay kaala dagaalanto cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala masaajidka inay kaala dagaalanto inay meelihii lagu qayilayey iyo meelihii maaragtay quranka halow ay ku geyso in addinkii oo dhacaya aadan dan ka yeelan in waxay isku dayeysaa qalbigaaga intay gasho inay kuwaswaasiso oo khayrkii oo dhan ay ku diido meeqaa bidca maanta laga kari lahay meeqaa laga kari lahay subxaana allah war waxa nebigu ma samayn sala allahu calayhi wasalam war sharciga ilaahay kuma taalo waaba ku haliilayaa waa shaydaan baa u qurxinaya wax kale ma shaydaan baa u qurxinaya adigoo lagu leeyahay waxaan ilaahay kitaabkiisa kuma sugna oo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam kuma sugna oo taabiciintii iyo saxaabadii may samayn salafka waxaad ugu haleelayso wax kale maahe isagaa wax kuu qurxinaya wuxuu isku dayayaa inuu camalkaa kuu qurxiyo si berrito aad u noqoto bidcoole ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan diin ahayn diin ka dhigtay oo ku mashquuliyey xaqiiqatan way ku mashquulinaya maanta waad dareemaysaa waxa la samaynayo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ogolayn oo waxaan nebiga ka sugnaa sala allahu calayhi wasalam noocii doonta ahaad
camalkaad samaynayso hadduuna labadaa ku fadhin oo ayna kitaabka ilaahayna aadan ka qaadanayn ama sunnadii nebiga dee adeer iska daa intii kalaba kugu filanba intii kalea inaga badan intii la sameeyey baa inaga inaga badan laakiin maadaama shaydaanka aynu ka hadlaynay cadowgana aynu ka hadlaynay wuxuu isku dayayaa inuu kuu qurxiyo acmaashaas oo kale oo weliga aad noqoto qof ku dheganaada oo aan ka dhex bixin oo u khidmeeya oo u orda oo wax u sameeya hadhow markaad dhimatana uu kaaga baxaya ilaahayna wuu kuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala oo wuxuu ku yidhi ina shaydaana lakum cadow faاtakhiduuhu caduwa war shaydaan cadow buu idin yahay ee ka yeesha cadow cadowgaagi marka hadduu wax kuu tilmaamayo oo yacni uu adigii ku jahaynayo kaasu waa mid khatar iska ilaali uga carar ilaahi subxaanahu wa tacaala wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullah